shanta dal ee leh ciidanka ugu badan adduunka. muuqaalkan waa mid xiiso iyo xamaasad gaara leh, waxaana dabcan ku ogaan doontaa dalal aadan filayn in liiskan ay ka mid noqon doonaan oo ku jira. balse marka hore inta aan muuqaalkan guda gelin aan ku xusuusiya daawade inaad ka mid noqoto saaxiibadeenna oo aad lagu soo biirto. mahadsanid. mar kale kulan wacan saaxiibayaal, waxaan muuqaalkan ku eegaynaa shanta dal ee adduunka ugu ciidamada badan. kala sareelta sida caadada ahba waxaan ka soo bilaabaynaa kaalinta shanaad, inagoo uu ku soo gabagabayn doona kaalinta koowaad oo dalkii ku soo baxaana uu noqon doono dalka ugu ciidamada badan adduunka. kaalinta shanaad waxaa ku jira dalka ruushka. ruushka waxa uu haystaa ciidan gaaraya 1.3 milyan oo ciidamo diyaar ah, waxaana ciidankiisa lagu tiriyaa kuwa markaa ugu khibradda badan caalamka. waxaana la sheegaa in ciidamada ruushka ay yihiin kuwa markaa sida aadka ah u qalabaysan marka la eego dunida, iyaga oo ku tiirsan ciidamada dhulka, taangiyo iyo hub markaa noocyo kala duwan ah. kaalinta afraad waxaa ku jira kuuriyada waqooyi. kuuriyada waqooyi waxay haysataa ciidamo markaa lagu qiyaasay in ka badan 1.31 milyan oo askari. waxay caan ku tahay nidaamka askarinimada qasabka ah ee muddada dheer, taasi oo dalka oo dhan ka dhigtay sidii saldhig militari oo weyn oo kale oo daqiiqad kasta diyaar u ah dagaal. kaalinta saddexaad Mareykanka. Mareykanku waxaa la sheegaa inuu haysto ciidamo gaaraya 1.36 milyan oo askari. ciidamada Mareykanka waxaa loo aqoonsan yahay mid ka mid a ciidamada ugu horeeya ee ugu wanaagsan dhinaca adeegsiga tiknoolajiyadda, iyadoo ciidamada Mareykanku ay yihiin kuwa markaa ku kala baahsan adduunka oo dhan. sidoo kale Mareykanku waxaa loo aqoonsan yahay mid ka mid a dalalka sida heerka sare ah u adeegsada diyaaradaha dagaal iyo maraakiibta casriga ah ee dagaalku. kaalinta labaad Hindiya. hindiya waxaa la sheegaa in ciidankeeda uu gaarayo ku dhowaad 1.5 milyan oo askari. ciidamada Hindiya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid a cududa bini'aadan ee ugu xooggan caalamka, iyo sidoo kale mid ka mid a ciidamada ugu khibradda wanaagsan. waxa uu ka kooban yahay qaybo kala duwan oo aad markaa loo qalabeeyey. kaalinta koowaad waxaa ku soo baxay dalka China. shiiluhu waxa uu haystaa cudud gaaraysa 2 milyan oo askari oo howlgasha. waxa uu haystaa ciidamo aad u awood badan, waxaana uu si joogto ah u casriyeeyaa hubkiisa iyo guud ahaanba qalabka ciidankiisu ay u baahan yihiin. waa cudud militari oo awood weyn, waxaana si joogto ah markaa u casriyeeyaa hubkooda iyo tiknoolajiyadda, taasi oo ka dhigtay quwad militari oo caalami ah. guud ahaan daawadayaal, intaas ayaynu ku soo koobaynaa muuqaalkeennii oon kaga hadlaynay shanta waddan ee ugu ciidamada badan adduunka oo dhan. wixii fikir ama aragti ah waxaad loogu reebi kartaa qaybta hoose ee faallada ama kommentiska.